لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. dhammaan marti sharafta kala duwan ee fadhida xafladan qiimaha iyo qaayaha leh oo ay ugu horeeyaan ardayda jaamacadda ka qalin jebisay heerarkeeda kala duwan iyo gobollada kala duwan ee dalka, macallimiintooda, maamulkooda, waalidiinta sharafta leh iyo madaxda dowladda iyo marti sharafta kala duwan. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan jeclahay inaan hambaliyeeyo, aan idhaahdo hambalyo dhammaan ardayda dhammaysatay koorasyada kala duwan ee jaamacadda iyo heerarkooda kala duwan, oon idhaahdo hambalyo. marka labaadna aan u duceeyo oo aan idhaahdo ilaahay subxaanahu watacaala ha idiin barakeeyo wixii aad barateen, hana idinka dhigo dad anfaca naftooda, ehelkoodii iyo ciddii tacab gelisay iyo ummaddii ay ka soo baxeen iyo qarankaba allah idinka dhigaan leeyahay. runtii waxaan kaloo jeclahay inaan iyadana halkan mahadda ilaahay iyo ammaanteeda kadib aan u mahadnaqo profesor axmed xuseen ciise iyo dadaalkii uu geliyey jaamacadaha ama aqoonta uu geliyey iyo waxyaabaha badan ee waxtarka ah ee uu dalka ku soo kordhiyey iyo siduu uga qayb qaatay in waddankan duruufihii badnaa ee la soo dersay intii karaankiisa ah uu qayb ka qaato. waa salaamayaa, waa hambalyaynayaa, waana u mahadnaqayaa. waxaan kaloo u mahadnaqayaa runtii waalidiinta sharafta leh oo aan u horraysiinayo hooyooyinkeenna wanaagsan, hablaheenna sharafta leh oo ay qof walba u muuqato maanta inay yihiin cidda tacabka soo gelisay inta halkan fadhida. waayo inta halkan fadhida maanta 95% waa dumar ee waalidnimada ku fadhida. waxay muujinaysaa cidda tacabkoodii daba socota inay haweenka yihiin oo ay iyagu ugu horeeyaan. allah idin barakeeyo tacabkii aadadkiina iyo ubadkiina geliseenna ilaahay bedel wanaagsan inuu idinka soo celiyo insha allahu tacaala baan aad iyo aad u rajaynaya. waxaan si gaara u hambalyaynayaa labadii hablood ee halkan soo istaagay, labadii hablood ee kale ku lamaanaa oo aan leeyahay sidii uu sheekh maxamed cali geedi sheegayey, ma aha qofku naafanimadu ma aha inuu xubin jidhkiisa awaayey ama uusan haysan, laakiin waa in uu garashada lumiyo iyo in uu lumiyo taraacdo ee kalena isagoo garashadii leh inuu hankiisa lumiyo oo isagu iscadilo. aad baan u hambalyaynayaa, waxaana ku waafaqsanahay dhammaan golayaasha dowladda sida wasiirka arrimaha guduhu halkan ka sheegay inaannu damaanad qaadayno in kasta oo la awoodo, hadday tahay golayaal iyo hadday tahay xukuumadba, in dhammaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba wax kasta oo loo qaban karo la kafaalo qaadi doono. ay ugu horeeyaan haddii 4 hablood ay jaamacaddan masterka sii dhiganayaan, halkan aanu ku qaybsannay in master programkooda ay qaadanayaan, kharashka jaamacadda dhammaan ay bixiyaan mas-uuliyadta halkan jooga, golaha wakiilada, wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda ganacsigu. waxaan kaloo jeclahay run ahaantii dardaaran wuu dhammaaday. intii iga horreysay inaan xafladda uun idiin soo xidho idinna hambalyeeyay ahayd, laakiin hadalku wuxuu ku kooban yahay maanta annaga odayaasha halka jooga ee lodadkii naga horreeyey lagana yaabo tayo waxbarasho inay aad iyo aad nooga horreeyeen. jaanisyada adag ee ay wax ku soo barteen ay ka sheekeeyeenna ay dhinac socdeen. waxyaabo badan oo kale oo maanta caqabaad oo idin haysta aanay jirin oo adduunka yaalla, oo ay ka mid tahay tii hadda Sucaad ka hadlaysay, mar walbana aan ka hadlo social mediaha iyo adduunka waxyaabahan malaahida ah ee lagu soo kordhiyey oo aan hubo inay dhaqan ahaan inoo baabi'inayso, aqoon ahaan inay inoo baabi'inayso, mujtamac ahaan inay inoo baabi'inayso haddii aynaan uga faa'iidaysan dhinaca positifeka ah. waxaan runtii jecelahay nimankaas
markaan eego qof waliba oo wax bartay ninba meel buu ku hadhay waxa hogaaminayna waxay ahayd dadaalkiisa waxa laga yaabaa inaad istiraahdo nasiibka xagu aaday nasiibka waxa helay qof dadaalay baa gaadho nasiibkiisu u yimaada qof iska fadhiya ama hurda nasiibkiisii de heli maayo nasiibkiisu wuxuu noqonayaa halka uu isdhigay dadaal baa laynooga baahan yahay markaa dadaashana inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarato ayaa lagaaga baahan yahay markaad dadaasho allana tala saaratana qanaaca lagaaga baahan yaho wixii markaa kula yaalla ee aad la deris tahay inaad ku qanacdo baa lagaaga baahan yahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu